اوكي aniga dhahaya kadibna waa iga daba dhaxaysaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan sheegayo runta runta oo kaliya sheegayo runta oo dhameystiran sheegayo wax su'aalaha waa weydiinaysaa ma jiro abukaato xaggaas ku soo istaagi kartaa mudane gudoomiye xaggaas soo istaagi kartaa haddaad su'aalo u qabto toos u gal علي سيد علي aamin markii lul aada ugu tagtay qolka dhexdiisa maxaad kula kulantay qolka dhexdiisa markaan ugu tegay xaaskayga lul ayay gubanaysa qaylidiina maqaarto markii ugu horeysay waa soo orday su-aasheeda waxaa waaye maxaad kula kulantay iyadoo gubanaysaad kula kulantay gubashadaas abukaate waxaa fursad u siisaa jawaabta asiga uu rabo inuu ka bixiyo haddii su-aashaa leedahay jawaabta asaa iska leh okay gubashada ishaadu ay qabatay ayadoo qolka ku gubanayso sifay siduu ahaa maxkamadda la wadaag haddaa la wadaago maxkamadda abukaate gubashadii xaaskay gubanaysay markaa imaaday qolkii gubanayay waxaan arkay iyadoo gubanayso oo maxay ahayd dabkii wada haysto dharkeeda dhan dabka wada haysto marka waad dareemi kartaa qof gubanaya markaa aragtid markii u horeysay markaa sidaa uga dami karo falankeedan galay waana ku gubtay laftarkeeda waana ka damaya akharkii dabka markaa ayada ah qolka dhexdiisa dabka saarnaay ama dabka ka muuqday intuu la ekaay qolka uu gubanayay ilaa kor dabka xoogaa waa gaaray maxay ahayd alaabta dhan way gubanaysa maxaa xigay markii aada la kulantay ayadoo gubanayso maxaa xigay waxaa xigay intii karaankeyga aan awoodo inaan dabkii ka damiyo gacanta la galo dharkii gubanaya ka siibo maxay ahayd soo wado bannaanka keeno kadibna maxay ahayd ilmihii soo bixiyo bannaanka aan keeno kadibna maxay ahayd dad iridda aan ka furay meesha soo istaagay la yiri dhar maxay xijaab u soo geli waa orday xijaabaan u soo geliyey intaa waxay ka dambeeyey waxaan la kulmay hanjabaado maxay dad oo ii hanjabaya oo lagu dilayaa oo ku dilaynaa waxsaasa la kulmaayo marka meesha igu dambeysay baa aniga markii aada aragtay ayada oo gubanayso waa soo bixiyey baa tiri soo bixintaada inteed gaarsiisay ilaa iridda bannaanka keenay kadib maxaad samaysay kadibna caruurtiiyaa soo daabulay bannaankaa keena ayagana caruurtii baad u laabatay bannaankaa keenay caruurta xaggay ku sugnaayeen caruurtii qolkooda jiifkay ku jireen wayna hordaayeen caruurta waxaad tilmaamaysaa in qolkooda jiifka ay ku jireen oo ay hurdaayeen siday kugu sahlanaatay inaad qolkaa asaga ah caruurta ay jiifaan aada ugu gashay wax kasta horta waxaa ka daran maxay ahayd dabka ma u jeedaysid waayo ilma dee qolkan ku jiraan aad og tahay oo u bareeri kartaa wax kasta marka qolka ilmaha ay ku jireen ma ahayn qolka gubanaya qol kaluu ahaay sidaa darteeda qolka ilmaha u galay ugana soo bixiyey bannaankan u keenay qolka ilmaha sow ma ahayn qol xiran oo u xirnaa ayaga
markay hurdaayeen ay xirteen maya waa laabnay qolka laakiin soo bixintaadii carruurta aad soo bixisay ee aad bannaanka keentay luul xaggay ku sugneed luul way taagneed meeshii taagneed xaaskii luul waa ay taagneed meeshay taagneed ayadii iyo carruurta markaad isu keentay korkeeda ma dabaa saarnaay mase dab la-aan uu ahaa macnaha ma waxbaa ka gubanayey ama ha ahaado maqaarkeeda ama korkeeda ama dharkeeda wax gubanayey miyaa markaa jiray wax gubanaya ma jirin waxaad sheegtay waxaan ka damiyey dab dul saarnaay luul dabkaa luul dul saarnaay ka damintiisa mar haddaad adiga iyo ayada aad aheedeen dadkii qolka ku jiray maxaad u isticmaashay daminta damintii markuu u horreysay gacanta horta la galay ayadiiyaa gacmaha soo qabtay sidaa qolka uga soo bixinaha ku dadaalay iridii markaan keenay dharkii gubanayaan ka bixiyey dabcan jirkeeda ma gubanay ee dharka ugu jiraa gubanayay dabka wada qabsada dharkiiyaa ka bixiyey aniga waa ka gubtay sanka waa ka gubtay ilaa gudaha waa ka gubtay gacmihii waa ka gubtay sidoo kale dhagaha waa ka gubtay intaasna haddee maana u jeedin dhibkii soo gaaraya laakiin sidaa ugu dami lahaa un falankeedan ku jiray waxaad muujisay sababta keentay dabka kaaga dhacay gacnaha sanka afka iyo dhegta inuu ahaa damin aad daminaysay luul aad la tacaalaysay wax kale oo aad u adeegsatid qolku ma lahayn miya wax kale oo u adeegsado waxaa jiray maro weyna jirtay oo markii dambe ku gambiyey dabkiina sidaas oo uga dami hawada macna maxaa xigay markii aad bannaanka keentay ayada iyo carruurtii maxaad u sheegtay maxaad tiri xaggay kuugu dambeysay ayada carruurta bannaanka markaan keenay fikraddeedu waxay ahayd gaarigayga oo geerishka ku jira inaan soo qaato gabadha xaaskayga ku qaada isbitaal ku geeyo laakiin intaas dhicin dabcan meesha gabadha xaaskayga eheladeeda deganaad gabadhooda gubanaysa marka arkaana kolley caray igula soo kor dhaceen ayagoo in hanjabaayo maxay ahayd oo ku dilayna ay leeyahay adiga qaab walba iila hadlaayo sidaa darteed maxay naftiisii weyday gaarigayga waa soo qaatay marka meeshaan iigu dambeysay xaaskii allah naxariis imise sanaad deganeedeen guriga dabka uu ka dhacay 2 bilood ya 2 bilood xaaskaaga luul imisa sano ayaad isqabteen sanada ma gaarayn waa 6 bilood iyo bar ya 6 bilood iyo bar meelahaas isqabno 6 bilood iyo bar ayaad isqabteen 6 bilood iyo bar mar haddaad isqabteen ma ogeed inay uur leedahay may uurkeeda waan ogaay dhibkaas markuu dhacay laakiin habeenkaas dhibka uu dhacay habeenka ka horreysa unbay ii sheegtaba ayna issoo baartay ayna ogaatay ogaanshaha luul inay lahayd uur ayadaa isi soo baartay oo kuu sheegtay haa daawada lagu baaro aan u soo gaday dabcan ayadaa isbaartay waana ii sheegtay okay imisa ayuu gaarayay ma la kulanteen dhakhtar xagga howlahaas oo kale dumarka u qaabilsan ma la kulanteen ma weydiiseen inta usbuuc inta bil uu gaarsiisan yahay uurjiifka ma la kulmin soo noqodkaadii sida aada sheegtay markii aad ka soo noqotay garaashka ee aada gaariga soo bixisay inteed ka leexatay oo gargaarkii aada rabtay inaad dhammaystirtid ilaa inteed ku soo gaartay ee aada uga leexatay geerishka markaan ka soo tegey dhankan iyo xafadeeda usoo leexday
markaan arkay rag badan oo igu soo ordayo maxay ahayd gacmahana kolley rag caraysanay ahaayeenoo maxay ahayd markii horena hadalladii la ogaayo dhahay dabcan dhankooda maana soo aadan marka maadaama igu soo ordayeen dhanka kale ayaan ka baxay marka waxaad maxkamadda horteeda ka qiraysaa ee aada sheegaysaa in aada 6 caruura badbaadisay iyo hooyadood abukaate su-aashaasi maxkamaddu kuma ogola si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta sababtoo ah waa su-aal afgelis oo jawaabta eedasan uu bixinaya afkaad u gelisay sidaas darteed ka gudub maxkamadduna ma qorayso su-aashaasi si kale haddaa u weydiisanaysid u weydiiso ma istiri adiga markii aad ka tagtay ee aada gaarigaada qaadatay ee aada ka leexatay gurmudkii aada samaynaysay ma istiri mase ku fakirtay in aada qabatay gurmad samata bixin ah su-aalaha afgeliska ah abukaate si waa kaa reeban tahay si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta su-aalaha aad weydiinaysid waa su-aalo furan oo caadi ah oo isagu xogtu rabo bixin karo su-aalaha afgeliska laguma ogolo maadaama aad su-aalaha tooska ah weydiinaysid eedana Siid Cali awgaad soo bixinta caruurta ee laga soo saaray qolka markaad ugu galaysay qolka cid soo jeeday miyaa ku jirta caruurta ma ku jirin caruurta cid soo jeeday waayo habeenka berihii sabtiga kale markay tahay waxbarashay leeyihiin salaada cishaba waa la jiifiyey caruurta waxaan filaa maalintaasi inay ahayd maalin sabtiya waaga hadduu baryi lahaa diyaarna ay u ahaayeen in shaqooyinkeeda ay qabsadaan adiga iyo lul imise saacaad guriga ka tegi jirteen goormaadsi ku soo laaban jirteen waxaan tegi jirnay 11:40 guriga ka tegi jirnay 11 kale maqribana waa soo laaban jirnay xageed aadi jirteen maxkamadda la wadaag airportka ka shaqeynayna labadeenaba ya airportka muqdisho ka shaqeynayna adan cad caruurta waxaan filaa in aad tahay xaafid alqur'aan wax caruurta aad u geysan jirtay xagga waxbarashada ama ha ahaato homeworkaha iskuulka ama ha ahaato xagga dugsiga maxaad ka geysan jirtay caruurta qur-aanka waa ka dhageysan jiray xitaa macallina uu sameeyey wuxuu imaan jiray maqrib kadib ilmuhu cashirka dhageysan jiray wuuna bixi jiray marmarka qaarna macallinka uusa imaana anaa cashirka dhageysan jiray okay lul markaad guriga ka soo bixinaysay gacnaheeda wax ay ku wadatay oo ishaadu muuqday ma jiraan hadday jiraanse maxkamadda la wadaag maya waxay gacmaheeda ku wadatay ma jirin markaas adiga oo Siid Cali ah dib ma ugu laabatay qolkii gubtay soo bixintii lul kadib maya waa iga dhantahay maxkamadda